munaasabadani lagu shaacinayay bilowga dhismaha fayska labaad ee wadada isku xidhi doonta deegaanka Balle Cabane iyo caasimadda Hargeysa oo munaasabad loogu qabtay deegaankaasi waxaa ka soo qayb galay cuqaal waxgarad salaadiin ugaasiyo iyo madax dhaqameed kala duwan oo ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaankaasi waxaanay ka warrameen muhiimadda ay wadadani u leedahay bulshada iyo sida ay ugu baahan yihiin bulshada ku nool deegaankaasi Balle Cabane waxaanay bulshada Somaliland qurba joog iyo qulqul joogba ugu baaqeen ka qayb qaadashada dhismaha fayska labaad ee wadada isku xidhi doonta deegaanka Balle Cabane iyo caasimadda Hargeysa wadada isku xidhi doonta oo dhererkeedu dhan yahay 56 kiiloomitir isla markaasina muhiimad gaar ah ugu fadhida bulshada ku dhaqan deegaanka Balle Cabane oo ka tirsan gobolka Hawd waxaan halkan baaq uga dirnay degmada Xarshin maamulkeeda odayaasheeda iyo dhammaan deegaanka iyo madaxweynaha dawladda deegaanka aanu niri wadada intii xagga hawshii waanu bilownay 16 kiiloomitir baanu markaa halkaa hawshii aanu gaarsiinay 40 kiiloomitir hadhayn hawshiisii waanu ku jirnay maantaanu bilaabaynaa insha Allah tacaala markaa iyagii aanu baaqa u dirnay wadadii way qaateen taladeedii wadadii way soo dhaqaajiyeen 30 kiiloomitir bay soo kaxeeyeen Balle Cabane soo gaarsiiyeen aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa sadaqad jaariya barigii hore waxaynu nooleen gaayeleeyo gamaanka fuul jiray oo iska dudsiye khaymaha oo dawin iska dhex socon jiray imika dhaawac iyo qof dhintay iyo meed iyo umul waxa loo maraya waa baabuur waxaan ku safraynaa dhammaan waa baabuur maadaama ay tahay inaynu sidoo nooleen wax ka bedelayno wadooyinkeena samaysana tan iyo tu kale waa loo baahan yahay tan inuu ka gacanta ku haynaa waxa weeyaan iyay hadal noqon waxaynu soo gabagabeynayaa waa inaynu hawsha u guntano hawshani waa hawl wanaagsan waa hawl kamida maslaxadda bini'aadamka waana arrin aynu ajar iyo xasanaad ka helayno waa arrin aynu u baahannahay dhammaanteen inaynu naf iyo maal iyo aqli iyo muruqba aynu u hurno waxa weeyaan wax la qabto waa waxyaabaha ugu qaalisan weeye waa jid weeye waynu u baahannahay waynu ognahay deegaankeena nimba wuxuu yiri ceesaantay ceelkeentay annagoo deegaanka hoosta ka soconna waxa la yiraahdaa marka horeba hawshan annaga lafteedu atoor iyo marooda isku cartado maroodigiina geedu jijibi atoorkina rakiis waxaan shamaahay dundu saayay labadii gees baa kaga haray hortaas aan leenahay annagoo isdhaliirayna arrintan wadada gacantaananu ku haynay imigana waanu ku haynaa dadaalkeedana waan qabnaa waan hadii la yiraahdo insha Allah waxaan leenahay ilaahay ha noo fududeeyo tuwaanu ka fadhiinay taanu imigaba gacanta ku haynay way inkastoo nidaas u dhasho hawsha gudanayo mar haddaan u gaashaan lahayn wala wax goynaya ma guuta loo qaybiyay iyo gaas daba joojin uu goolka kaliya dhashay waa habeen kooda aanu ka hadlaynaa mawduuca maanta waxa weeyaan wadadii Balle Cabane waxa weeyaa sayla Balle Cabane sayla dacawalay iyo garabis iyadoo ay wadadu ku taagan tahay fayskeedii hore sayla ku taagay fayskii labaadna aanu qaadi doono maanta oo aanu gaarsiin doono Hargeysa ilaahay waxaan ka baryaynaa in hawsha aynu wadnayo wadada aynu sameynayna ilaahay noo fudaydiyo ilaahay khayrkeeda ina siiyo sharkeedana inaga nabadgeliyo inagana ilaahay shaakiriin xaamidiin haynaga dhigo nimcooyinka uu nasiiyay ilaahay kuwa ku mahadnaqa ka dhigo waxaynu wada leenahay hadafka kaliya inuu maanta wada leenahay dadka maxay hayday ay khusayso degmada Balle Cabane ilaa Hargeysa cid ka soo jeeda waa la garanaya waxaan leeyahay sida qayrkan ay noqono fadhigana aynu ka kacno sidii caalamka sidii maxay hayday wadooyinkii naga horeeyay sida yeeli jireen hal la yeelo faa'iidada wadadu ay leedahay waxay nooga warramay sheekha ilaahay khayr ha siiye oo ifkiina waynu manaafacaadsanayna inagii waa marayna waynu ognahay gaadiidkeeni tirada maanta uu yahay iyo inuu maalin walba kordhayo ummadeeni isu socodkeedana waynu ognahay tiradii population-kuna inay maalin walba kordhayso wadadu waanu soo marroodee wax waa laga qabtay in ka mid ah ilaa 16 kiiloomitir halkan ilaa sayla 55 kiiloomitir weeye 39 baa hadhay ummadda reer Somaliland baa qaan halkan uga diraya gaar ahaan dadka deegaanka waxaan leeyahay war ninkii neef bixinayo iyo ninkii $100 bixinaya iyo ninkii ka badan bixinaya iyo ninkii gaadiidkiisa ku deeqaya iyo ninkii gacanta ka shaqaynaya iyo ninkii gudinimo ku shaqaynaya ee xigmad ku biirinaya meesha dhammaantiinba
way idin wada furan tahay waddadu waa waddadeennii weeye danteennii baa ku xidhanaysa socodkii bulshada dhammaantiin waxaan leeyahay laga wada qayb qaato guddidii waddada xarshin ka timid ee Ballacabane keentay guddidii Ballacabane la Hargeyso rag iyo dumar u qaybsanto oo waliba dumarku aad u firfircoon yihiin ayaa halkan isugu wada timid saddexda guddiba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa siiba guddida ka timid ee dawlad deegaanka ee xarshin ka timid oo markii hore annagoo intaan halkan ka bilownay iyaguna qaatay nagana hordhameeyay maanta aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan imikana aynu ku baratamayna waxa weeye anagu weli geed qaad baanu maranahay inaa horta carrakawadana naga horeysaan daamirkana insha Allah haddii naga horeysaan aan idin taba soconno haddaan intaanu dadaalno aan idinba dhaafin marka dhammaan ummadda reer Somaliland oo meel kasta ay joogto iyo gaar ahaan dadka deegaankan u dhashay waxa laga doonayaa inay wadooyinka ay maanta magacooda qaateen inay wado walba dhameeyaan waa Mustafa Axmed Samakaab telefishinka caalamiga ah ee Nabad TV magaalada Hargeysa.